Asalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiiseeya Konami ama eFootball meel walba adduunyada ku joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha maalinta Khamiista ah la keeni doono, hadday ahaato Play of the Week, hadday ahaato manejero ama tababaro, hadday ahaato bagis ama koonisuliya, wax walba oo Khamiista la keeni doono ayaan muuqaalkan iskula eegi doonaa. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad channelkan soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like sarto, channelkan subscribe dhahdo, gambaleelkan aad furato si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto. Haddii aad horey nala joogteen muuqaalkan like sar, like-ta ka hilmaamin. Waayahay waxaan gudgalaynaa waxyaabaha maalinta Khamiista ah la keeni doono. Maalinta Khamiista ah waxyaabaha la keeni doono waxaa u horeeyo waxaa waaye live stream gaming. Diiwaankiisa ayaa noo bilaaban doono. Diiwaanka ayaa noo bilaaban doono waxaa la siin doonaa 1000 points. 1000 points ayaa la siin doonaa oo free, qof walbo oo gameka isticmaala uu qaadan doonaa. Waxyaabaha kale waxaa waaye warbixintan oo ay soo dhigtay shirkadda Konami oo ay sheegtay inay Bourteria bixin doonto. Bourteria waxaa waaye ninka wuxuuna ku bilaaban doonaa 95 ayuu ku bilaaban doonaa. Waa Bourteria update-ka markii ay shirkadda samaynaysay ay sheegtay inay keeni doonto. Waxyaabaha kale oo ugu muhiimsan oo maalinta Khamiista ah la keeni doono waxaa waaye manejero aad u fara badan ayaa la keeni doonaa. Manejeradaas ama tababarayaashaas haddii mid ka mid ah aan idin tuso, tababarahan ayaa la keeni doonaa oo 500 oo koonis lagu furanayo. Tababarayaasha aad ay u fara badan yihiin, waxaa laga yaabaa ninkan in la keeno asagana 500 oo koonis lagu furto. Waxaa kaloo laga yaabaa tababarahan kale in la keeno asagana 500 oo koonis markaas lagu furto. Marka tababarayaasha halkaas ayaan ugu gudbaynaa. Waxaa kaloo aadaynaa dhanka boontiska. Boontiska saa wada ogtihiinba mar walba waxaan soo geliyaa ciyaaryahanno dab iyo holac ah. Dhanka boontiskana waxaa lagu soo kordhin doonaa dhowr ciyaaryahan oo ay ka mid yihiin saddexdan rag Rodrigo, Neto iyo John. Saddexdan rag ayaa markaasi la keeni doonaa ayaa leeyahay dhanka boontiska. Waxaa kaloo jirto ninkan Militao iyo Rodrigo Coman, saddexdan rag ayagana waxaa leeyahay dhanka boontiska ayaa lagu soo kordhin doonaa. Dhanka boontiska waxaa kaloo la keeni doonaa Griezmann iyo Oblak iyo ninkan kale ayaa la keeni doonaa. Dhanka boontiska waxaa kaloo la keeni doonaa Duku iyo Delor iyo ninkan kale ayaa la keeni doonaa. Dhanka boontiska intaas ayaa lagu soo kordhin doonaa. Dhammaantood lama wada keeni doono, 3 qof ka mid ah ayaa la keeni doonaa. Laga yaabaa 6 qof in laga keeno, laga yaabaa 1 qof ama 2 qof ka mid ah in la keeno. Intaan waa inta loo saadaalinayo in dhanka boontiska lagu soo dari doono. Waxyaabaha isbuuc walba ama Khamiis walba aan ku baranay gameka waxaa waaye Play of the Week-yada. Play of the Week-yada labadan qof oo John Bellingham iyo Griezmann ayaa u horeeyo. Labadan lagama soo tagi doono Play of the Week-yada. 21-ga waxaa waaye intaan hadda shaashada ugu jeedo John Bellingham, Jamal Musiala, Griezmann adi way fara badan yihiin aan dhahe. Intaan ayaa la filayaa in la keeno. Laga yaabaa 21-dan qof in wax laga soo bedelo, laga yaabaa in sidooda lagu keeno 1 qof iyo 2 qof iyo 3 qof in wax laga bedelano waa laga yaabaa. Buuso hoos dhihina dhow maxaa waaye 21-da qof aad dhahaysay raggaas ayaa ka maqanay. Laga yaabaa aan ku dhahay in wax laga bedelo, laga yaabaa in sidaan lagu keeno. Haddaba muusow warbixinteena maanta intaas ayay ku eg tahay. Intaan ayaan jeclaystay inaan kula wadaago. Maxaa diiday haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa nala soo gartay inaad muuqaalkan like sarto, channelkan subscribe dhahdo, gambaleelkan aad furato si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto.